Ma laga yaabaa in intiina badani ay aaminsan tahay inaan haba yaraatee kasmooyinka aqoonta ama culumta sayniska iyo Soomaalida waxba isku gelin oo aanay waxba wadaagin waxna aanay ka dhaxayn. Haddaba inta aynaan qurbadeena kaga warcelin weydiinta ah Soomaalida iyo reer Yurub iyo ma horhale cudurka duumada waxa aynu ugu horeyn isdul taagi doonaa waxa ay duumadu tahay. Kadibna waxa aynu tilmaami doonaa taariikhaha reer Yurub cudurkani la soo maray. Ugu dambayna waxaynu si toos ah ugu niqi doonaa cidda reer Yurub iyo Soomaalida kooda daah furay cudurka duumada. duumadu waa cudur qandho qabow iyo kulayl isugu jirta leh oo ay sababto afarbaaleyda lixda lugood iyo afka dhuuban ee ay xoolaha iyo dadka dhiigga kaga nuugta leh loona yaqaano kaneeco ama dhirmaayo. duumada ma keento bakteeriya ama virus, balse waxa keena dullin yar oo ku dhex dhasha dhuunta kaneecada dhadig ee loo yaqaano Anopheles, taas oo markay durto maqaarka qofka dhiiggiisa raacisa dullinka yar ee duumada keena. qofkuna sidaasi duumada ku qaado, dullinkuna qofka beerkiisa sidaasi ku fadhiisto. duumada aynu sidaasi ku qeexnay sababteeda iyo sabadeeda reer Yurub iyo dunida inteeda kale waxay sidaasi u ogaadeen sanadkii 1880kii markuu sidaa qoraal ku soo bandhigay faraadin Faransiis ahaa oo la oran jiray Charles Louis Alfonso. waagaas wixii ka horreeyay reer Yurub waxay aaminsanaayeen in duumadu tahay dabayl ku xumaatay qofka, waana ta keentay inay u bixiyaan malaria oo ah erey Laatiin ah oo ka kooban maal iyo aria oo macna ahaan noqonaya hawo xun. waagi reer Yurub cudurka duumada malaria u bixiyeen oo ku beegan casriga u yaqaaneen casrigii dhexe oo ah hilaadii u dhaxaysay 1000 ilaa 1500 ee miilaadiga. casriga faraadinka reer Yurub waxay aaminsanaayeen in duumadu tahay ruuxaan shaydaan oo ku abuuranta maskaxda qofka, sababta ugu maangalsan ee lagu daaweyn karaana tahay in la jabiyo lafta madaxa ee bukaha si ruuxaantaasi ay u hesho marin ay ka soo baxdo. sababta oo ogaataa waa daaweynta barkeeda jahawareerka iyo aqoon darrada reer Yurub ka haysatay duumadu waa ta keentay inay ku sii nagaadaan oo ay sii deganaadaan hareeraha biyo fadhiisinada iyo webiyada, kaneecaduna ka sii layso malaayiin iyo malaayiin ruux. halka Soomaalidu taqaanay sababta iyo sabada duumada walow aanay lahayn af qoran oo aanay dhitayn jirin gumarooyinka cilmi baadhisaha ee kasmooyinka aqoonta. haddana waxaan shaki ku jirin in Soomaalidu weligeed iyo waaqeedba taqaanay sababta iyo sabada cudurka duumada. sida ku cad magac bixinta kaneeco iyo dhirmaayo ee ay Soomaalidu u taqaano, waxa intuba sheegayaan fahamka Soomaalidu u lahayd waxa sababa cudurkan. inaan madax iyo meel kale cudurkani fadhiisan balse sabadiisu tahay beerka, Soomaalidu sidaa way u garwaaqsanayd. waxa tusaale inoogu filan tuduucyadan soo socda oo Sayid Maxamed Cabdilla Xasan tiriyay. nin dhintay iyo nin dhoobay tegay wax isma dhaamaane, nin dhirmaayo uurka u gashaan dhimana noolayn. labadaa meeris waxa uu darwiishku si farshaxan leh inoogu soo bandhigay 3 arrimood oo reer Yurub waagaasi ka daahnaa. waa ta koowaade wuxuu inoo sheegay deegaanka biyaha leh iyo waxa kaneecada ka dhaxeeya, taasoo aynu naqaano inay ku taranto oo waxantana biyaha kaneecadu duligato. waa ta labaade waxa kale oo uu inoo iftiimiyey in dhirmaayadu cudurka keento. waa ta saddexaade wuxuu inoo tilmaamay in dhirmaayadu uurka fadhiisato oo aanay
madax iyo meel kale toona fadhiisan. haddaba markii ugu horreysay ee qoraal lagu xusay Soomaalidu waxay ka aaminsan tahay cudurka duumada waxa ugu da'weyn dhigana la yiraahdo First Food Studies in East Africa oo uu socdaalkiisii uu ku maray geeska Afrika horaantii 1850-aadkii ka qoray dhulmareen Ingiriis ahaa oo la oran jiray Richard Burton. wuxuu si tiiqtiiqsi leh buuggiisa ugu xusay in Soomaalidu khayaal ka aaminsan tahay in kaneecadu sido duumada. isagoo daadafaynaya aragtida xiriirinaysa kaneecada iyo duumada ayuu yiri waxa laga yaabaa in khayaalkani uu ka yimi in kaneecada iyo qandhadani isku soo beegmeen. hadal iyo dhammaan qormadan oo aynu ugu talagalnay inaynu kaga jawaabno reer Yurub iyo Soomaalida ka hor helay duumada waxa aynu garta u niqi doonaa habka dunidu u maarayso arrimaha noocan oo kala ah. taas oo la eego qoraalada labada dhinac ka da'weyn sidaasna garta uu ku helo qoraalka horreeyay. haddaba goorta uu dhakhtarka Faransiiska ay soo bandhigay waxa sababa cudurka duumada oo ah sanadkii 1880 iyo xilliga Richard Burton buuggiisu soo baxay oo ah 1856 waxa u dhaxeeya muddo 24 sanadood ah. sidaasna waxa inoogu caddaatay in Soomaalidu hor heshay sababta duumada keenta. qormadeenan waxaynu ku soo afmeeraynaa tuduc ka mid ah gabay uu tiriyay Allah u naxariistay Salaan Carabay. waxaynu oranaynaa waxba yaanu xeer kay imarin xoolana isiine xaasheen libi ka xistiyay xumihii waaya. haddaba si aanay waxba ku dhaafin ku soo biir oo ka mid noqo bahda ardayga kasmo waxaad ku jisaa badhanka cas ay ku dul xadhan tahay subscribe. wixii talo ama aragti ah ee aad hayso fadlan noogu dhaaf qaybta hoose ee faallooyinka. waad mahadsantihiin.